Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa cashar yar oo ku saabsan sidee laba cod looga dari karaa telefoonkaaga adigoo isticmaalaya VLC-gaaga iyo barnaamij kale oo kugu caawin doono inaad effect ama codka kale aad rabto inaad kasoo jeediso aad ka daarato. Su-aashaan ayaa ah mid in badan la isweydiiyey. Waxaad qoraysaa meesha searching-ka Play Store-ka ayaad tagaysaa, kadibna waxaad ku qoraysaa music player, audio player, music player iyo audio player. waa isku daba xijinaysaa music player, audio player. markaa qortid waxaa imaanaysaa music player, audio player oo loo yaqaan shirkaddan QCAP aa soo sameysay 2020 ku qoran. marka way isku egyihiin daa'iman. marka waxaad dooranaysaa kan ayaa dooranaysaa. aniga already install uu yahay, waan isticmaalaa kan 2020 ku qoran music player, audio player. marka asaga markaad install ku dhahatid asaga ayaad imaanaysaa. hadda effect ayaa ii shidan, gadaal uu iga shidan yahay, VLC-ga ayaa iga shidan yahay. kanna sidan ayaa u shidayaa asagana. kan waa ii daarmay. VLC-gana haddii aan tago, kan VLC-ga haddaa istaajiyo, ka VLC-ga iga istaagaa. haddii aan rabo wax kale waa ku daara karaa isagoo sidiisa quraan oo kale. okay, kan codkiisa inaan gaabiyo aan dheereeyo, kan codkiisa waad xukumi kartaa. waxaad tagaysaa geeska optionka meeshaan ay ku qoran tahay equalizer meeshay ku qoran tahay tagaysaa. waxay siinaysaa equalizer-kana waxaa ka dhigaysaa waa gaabine. effectiga gadaal oo kan barnaamijku daaraya wuu gaabanaa, kan VLC-gan aada u dheeraanaa, wuu gaaban yahay kaas. asaga haddii aan rabana inaan dheereeyo waxaan tagayaa geeskaan tagayaa, kan saddexaad aa imaanaya, equalizer-kaas aa imaanaya. waa meesha codka lagu xukumo. aad ayaan u dheereenaa haddaa rabo. I hope inaad fahamteen. allah idinka dhigo kuwii ku anfaco wax fiican. allah idinka dhigo kuwii ku anfaco wax fiican, ku adeegsada wax fiican insha allahu tacaala. haddaa YouTube ku cusub tahay subscribe iska sii, like. wixii aad fahmi weysana commentiga ku dhaaf insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.